halkan waa fagaaraha caanka ah ee Federation Square ee bartamaha magaalada Melbourne. Saaka dadku waxay ku waabariisteen calan blue oo xidig cad dhexda kaga taala. Calamadan ayaa halkan looga baran. Waana sanad guuradii 61aad oo maanta Soomaalida ku nool magaalada Melbourne meel fagaaraha ay ku xusaan iyadoo calanka buluugana sidaad arkaysaan laga dhex taagay bartamaha magaalada Melbourne. Waxaan joognaa dhismaha iconic ah ama caanka ah ee loo yaqaan Federation Square. Waxaan halkan maanta ku qabanaynaa munaasabad kooban oo ku saabsan soo dhaweynta maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed ee 26 Juun iyo 1 July. barnaamijkan qorshihiisa markii hore wuxuu ahaa waan soo wadnay in muddo ah ilaa iyo 5 bilood ku siman inaanu halkan barnaamij ku qabanno dadka Soomaaliduna ay ka soo wada qayb galaan. laakiin nasiib darro maadaama xanuunka COVID-19 uu soo noqnoqday waxyaabo badan baa iska bedelay barnaamijkii oo waxaa la joojiyay isu imaanshiyaha dadka badan. Gudoomiyaha gobolka Bay ee Koonfur Galbeed oo kamid ah jaaliyadda Soomaalida Melbourne ayaa isna goob joog ahaa. Federation Square oo calan Soomaaliyeed ka teegayay mayba muujaas ah meel ay caalamka meelum ku jarna inay oonay toy dawladda Soomaaliyeed meel lanka aqoonsanaa inay jarna madun way guulaan aragay. Soomaalidii deganeyd muddo ka badan 30 sano ayaa maanta aad ugu riyaaqsan calamada halkan la suray. calanka laga saaray maanta Federation Square oo aanu u jeedno meesha ka babanaya buluuga waa 30 sano wadankan joogo waa maalintii ugu farxad badneed wadankan waayo qaran Soomaali la yiraahdo oo Federation Square ka dhex taagan oo calanku ka babanayo oo maalintii 1 July ay tahay. maanta 1 Luulyo waxay sanadihii hore kaga duwan tahay meesha aan taaganahay waa Melbourne Federation Square oo ah city-ga bartamihii gadaashayga waxa ah calankii Soomaaliyeed oo laga suray xalay 6 saac markii ay ahayd. ummadda Soomaaliyeed ee Melbourne ku nool waxay u tahay farxad weyn oo uga duwan sanadihii hore ee la soo dhaafay. maanta waa maalin weyn waxaan u dabaaldegaynaa 1 Luulyo oo ka soo wareegatay 61 sano markay qaadatay Soomaaliya xorriyadnimada. oo maalin bar waa mataqaan maalin wanaagsan waxaana maanta sharaf inoo ah in calanka Soomaaliyeed lagu soo taago magaalada Melbourne ee Australia oo ah magaalada labaad ee magaalada madaxda gobolka Victoria. waa farxad waxa dusheeda ka babanaya waa calankii Soomaaliya. officially maanta waxaan ku biirnay jaaliyadaha waaweyn ee Australia maadaama ay tahay maalintii ugu horeysay ee calanka Soomaaliya laga babiyay Federation Square oo ah xarunta dhexbartamaha ku taala ee magaalada Melbourne. intaas kadib waxaan soo gaaray guriga Mark Hudson oo ah nin Australian ah muddo ka badan 10 sanana gurigiisa fooqa sare surayay calanka si uu la dabaaldego dadka deriskiisa ah ee Soomaalida. Yeah, let's go. Especially the first time I put it up. waxa uu yiri maalintii ugu horeysay ee calanka aan suray waxa guriga ugu soo garaacay Soomaali oo i weydiinaya calankan quruxda badan ee Soomaaliga ee halkan aan suray. kadibna Soomaalidu saaxiibo ayaynu noqonay ilaa muddo 7 ayuu sidan calanka ugu dulbabanaya gurigiisa. geesaha waxaa ka degan Soomaali. Mumuna Cabdi Caynab ayaa sanad walba kamid ah deriska la dabaaldega. waxaan u nimid ninkan Mark oo sanad walba soo saara calanka Soomaaliya oo xasuusiyo Soomaali community-ga Heidelberg degan ama Melbourne ku noolba ninka kaliya calanka ka taaga oo Soomaalida waxa xasuusiyeen horta bal sanadka bishii la gaaray in kalaba dadku qaarkii waa iska mashquulsan yahay. marka ma sha Allah ninkan aad baan uga mahad celinaynaa meel weyn buu nooga yaalaa. annaguna waa la xafladaynayo waa la dabaaldegnaa maadaama ay maalinteeni tahay oo asaguna soo kacshay annagina daa inagu taagnayd. Ibrahim Bashiir iyo Muumina halkan ayay sanad walba iyo kuwii ka horeeyayba ay kula dabaaldegaan Mark Hudson. maanta calanka saaray oo annagii iyo deriskii oo xaafadda Soomaali ah oo celebration ku suubinayna annaga inta awoodna intaas ahayd inaan xaafadan imaano aan calanka u dabaaldegno. Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia.